xigmadna waxa waaye intaad ka faa'iideen idinku filan dadka ruux walba ruuxii ka aftahansan adikaba dhagihiina waad ku maqashaan indhihiina waa ku aragtaan marka wareeggii labaad dhibca ahaan waxaa batay dhanka coinska marka loo eego shiina culay oo keenay halkan plantab gudbo den markaasaan natiijada sheegaynaa wareeggaani waxaa badiyey shiina oo keenay wax 100,000 ka badan oo coins ah iyo daayir calasow oo helay 51.7 marka daayir adigana waa ku qanacsan tahay shiinana waa ku qanacsan yahay natiijadana nin walba indhihiisu ku arkaa marka waa wareeggii noogu dambeeyey shiinow hal su'aalna way ku hor taallaa 5 daqiiqo iyo 7 daqiiqana waxaad ku heshiisaan labadiina ayaan time ahaan idin siinaa أي شيء ما يقع قادنا ما شن بارت تابع 5 دقيقة baan wadayna أي 5 دقيقة صعب 5 دقيقة waa gogosanayna si aan hadalkii u gogosano oo u kala okay 5 daqiiqo oo ay hal su'aalna ku hor taal su'aasha hor taala adiga okay odayga hadalkiisii waa ka daba tegayaa horta odaygu wuxuu sheegay wuxuu yiri hadaaye gobolada maxaa ku yiraahdayay Soomaali galbeed iyo NFD gumaysi baa haysta oo maaragtay mar rabo inaan kuwa ka hadlo haddana taariikhdii wuxuu ka bilaabay dawladdii daakhiliga ahayd ee maaragtay gumaysiga hoos joogtay ee Cabdullaahi Ciise joogay xilligaas Soomaali xornimo maaragtay ma aysan haysan calan baa Hargeysa laga taagay buu yiri daahir wuxuu iloosan yahay calanka ninkii sameeyay geed baa ka weyn inuu ahaa Maxamed Cawaale Liibaan marka calanka halka laga taagay calan ciyaar tushay iyo mid adigu toltay toonna ma ahayn Soomaali oo dhan loo talay calankeeni weeye kaama xigno laakiin Maxamed Cawaale Liibaan baa helay dadkii ka soo qaaday Ingiriiska xornimada gobolada waqooyi waxay ahaayeen 5 la diray bay ahaayeen oo beelaha halka degan ka wada kooban isaaq 2 qof ugu jiray harti 2 ugu jiray samaroona 1 qof ugu jiray garaad cali baa kamid ahaa marka garaad cali uu leeyahay oo dhulbaanta ahaa aynu ahaanu 5 bilood dawlad oo uu maxaad Ibraahim Cigaal lahaa laaya garaad xornimadaana waxa keenay cid kale ma ahayne daarood baa ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa u diray isaga Ingiriis wadanka ka kiciyay isaga diyaarada lagu duqeynayay isaga taleex u fadhiyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariisto beesha dhaxa afka ku balaarisay Ingiriiska la shaqeynayay wax iska caday iska ahayd waxa weeye waxa sheegtay generaalkii ugu horeeyay oo Daawud baa lahaa ha ilaawin Maxamed Abshir Haabaan Allah u naxariisto taliyay ugu horeysay ciidanka booliska daahir ha ilaawin waxa sheegtay maxaan ku yiraahdayay Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto oo 11 sano wadanka haystay wadanka xukunka waa laga tuuray sax si oo inqilaabana waa ku qabsaday Afrikaanka waa ka dhacdaa nin xukun military ku qabsaday in dad ku kacaan cidii ku kacday adigu waa u shaqeynaysay waa ku cashuurayay kama xumayn niman daarood ay ahaayeen waxaan jeclaan lahaa daarood dhixdii inaadan igala hadlin daarood baa saas yeelay inaadan igala hadlin oo waxa kugu filan de habar gidir iyo abgaal inta islaayeen haddaan maanta ka sheekeyno wax laga hadli kara ma waa kuwa hadda hirshabelle ku heshiin la waaye marka Siyaad Barre Caydiid baa ku faantay Caydiid hadduu marxuum weeye anagu dadka maartay geeriyooday ma aflagaadeen waxna ma niraahno laakiin waxaan ku xasuusinayaa hadduu haliyay ahaa isagoo isbaara taagan in adeerkiisa dilay wuxuu ahaa adaa inta la taagan waxa dilay Cabdi Qaybdiid baa dilay dadka qaar ismaacaatay dhahan kulay habar gidi kama tagsanayn filo Soomaaliya lagu dilay isbaaru taagnaa markii halkaas isbaarada anaa ka qaadanay ahayd Siyaad Barre nin wadanka 12 sano joogay buu ahaa talinayay madax ahaa waa tagay xukunka laga tuuray waa caali awal xoog ku yimi sanduuq kuma iman xoogii baan lagu kaxay ma jeerteen baan bilaabay oo SDF ku ahaa SNM ma bilaabin USC na maxaa ku yiraahdayay ma bilaabin marka waxa tiri dawladdu waa riday haddaan nin caaqibada tahay waxa weeye xukunka ku heshiin lahaydeen Rwanda ka dhacday Hutu iyo Tutsi baa ku diray Tutsi baa adkaaday waka Bob Kagame sharaf buu leeyahay wadankii waa dhisay hadduu Caydiid maalintii qaadan lahaa hawiye markay tashadeen inay wadanka maamulaan saasa dantu igu jiri lahayd adna dantu kugu jirtay maantana waa ku faraxsanaan lahayn laakiin anna waa soo qaxay adna waa iga soo daba qaxday waa ku heshiin weyda Cali Garle Caydiidna Garle baa ka dameysiisay dawladnimadii
siyaad barre wuxuu ka tegey waa arki doontaa waraysiga nin habar gidira oo wasiirkii maaliyadda ugu dambeeyey ahaa uu bixinayo siyaad barre kaali markuu marayo raadiya muqdisho markuu ag marayo raadiyo muqdisho wuxuu u rogay foosta shilaala si uu raadiyo u sii shaqeeyo xabad kombiyuutar ma qaadan adigu wadankii markaa soo gashay oo jabhadda ah ku soo gashay maxaa wadankii ka samaysay kombiyuutaradii baa qaadatay gogolaha ku jirtaa meel walba taalaa filadii adoo diiranaya oo ku heshiin la haddaa maalintii hoggaanka waddanka ku heshiin lahayd maanta anna dambe i ahaan lahayd anna dambe ku ahaan lahayd waa meeshaan ku leeyahay isimo odayaal dhaqan oo idin kala dhex gala oo wax idin kala yidhaahda male waa sababta ah hal maamul goboleed ugu heshiin adihiin laakiin daaroodku uu u leeyahay dad ku heshiiya haddaad adigu cid sheeganayso leeyahay axmed gure ba aniga iga dhashay aniga waa nin cabdari ah ay sheegan kartaa laakiin qof walba cid yahay taariikhda maarad ku qoran tahay xalakan tiktok markaa soo eegno sj baa hadda wax soo diraysa sj intay meesha ka soo dirto hawiyo dhan haddii laisku daro ma diro waxaan kuu tirin karaa 30 ilaa 100 qof oo daaroodo ilaa maalintii la furay wax diraayay maaha inaan idinka lacag badan nahay laakiin qalbiga xaggiisa ayaan ka qanisannahay adiga hal qof hadduu soo galo oo laba game ciyaaro game saddexaad ma ciyaaro marka ama credit card soo qaato ama hagbad ha soo galo ama deen ha soo galo iyagu intaasaasi u wadaan xagee ka keenayaan ina isweydiisaa mudan waxa waa dad qulubta qaninka awey dad Soomaaliyeed kula mid weeye laakiin qulubta qaninka yihiin hadda gifti baan kaa badanayaa hadalka ku bilowday meeshaan marayo iyo meeshaan joogto inaa isegtaa fiicnaan lahayd laba caasimadood baa sheegtay war Soomaali 18 gobol baa 10 aan diganahay 8 Soomaalida kala digan 10 ana digan yaa daahir inaad taa ogaatid baa fiican Soomaali galbeed ogaaneen yaa dhaha shiiqaana wax ku lahay waa digan yihiin hawiyaha hal meelaha waa jooga gobol kasta Soomaali waa joogtaa waa ka baxay shiinow timekaadii waa dhammaaday waqtigaadii waa baxay 5 daqiiqo si sharaf leh u qaadatay adigoo si wanaagsan u hadlay marka waxaan rabaa in aan natiijadii saddexaad soo gudbiyo rocketkaana ugu dambeeya natiijadii ugu dambeysay oo wareeggii saddexaad waxaa mar saddexaad adkaaday saan u jeedo shiino culay oo haysta 274 iyo daayir calaso oo haysta 192 shiinow intaanan dooda wareeggii saddexaad usii gudbin daayir su'aal uu kaaga tegey adigana waxaan jeclaan lahaa si daayir uu meega u qabsado hal su'aal tale iyo tusaale waxaad haysid inaad ugu tagtid si uu mikrofonka u qabsado su'aashu iga tegay igu celi dadkayga waxaan ka codsanayaa maqaaxida kiradayda in la iga bixiyo odayga qurux ku dhigla waa isoo eegaya odayga hal eego su'aashu weydiiyey hadda adeed tahay su'aalaha inaa xasuusto igu celi maya dhib male taa waaba ka gudubnay maxaad su'aal ugu tagaysaa daayir si uu meega u qabsado mise waa fasaxaysaa may ha hadlo maxaa su'aal weydiinaya ha hadlo okay daayir maqal ma jira waa jira maqal waxa weeye horta natiijada kooliska waxaa lagu kala bixi doonaa markay ciyaarta dhammaato doodeen ay dhammaatay soo gabagabaysay waxaa la eegi doonaa yaa sarreeya sababtoo ah waxaa la yidhi daaro daadaansi ma daayo haweenadan jibis ma daayo marka waa ognaha baalo xooftada hore mar kasta way ku horreeyaan ayaga laakiin waxa ay ku dhammaataa guuldarro baalo xooftadooda shiina su'aal baan weydiiyey markii ugu dambaysay inuu ka jawaabana waa kari waayey waxaan weydiiyey war waxaad ii sheegtaa walaalkay shiinow daaradka aad sheegaysay aad u hadlayso magaalo ay 1 milyan oo qof ku nooshahay may jirtaa oo daarad leeyihiin tusaale waxa u soo qaatay aniga muqdisho degaa hawiyaan ahay 4 milyan ku nool waa caasimadda iyo kaliya tusaale yar waa soo qaatay hadday jirto daarood heesta magaalo noocaas waa ii sheegi kartaa hadday jirto population magaalo ah ay leeyihiin oo jaalaj gaari karto ii sheegi kartaa isaaq waa la yaqaanaa magaalada Hargeysa waxa qalqa ku nool hawina waa la yaqaanaa adigu magaalada alla dara ii sheegto waan rabaa daahiro waa ana iskale aad waa ka jawaab doontaa daqiiqadaha uu jawaab doontaa daqiiqadihii kama soo hadli kartid 5 daqiiqo soo doontaa dambe hadaa taada hore ilowday taala adigu soo jawaabi doontaa waxa kale meesha yaala waxa weeye oo aynu ka hadlaynaa waxaan kala hadlayaa taariikh fog oo ku saabsan gobonnimo iyo calan جانا محمد فارح إجا سو هذا قاد الله ونحرستي هل يبو أها واحد أكتهي
ninkii 32 dowladood oo ku soo duushay oo Mareykanka hogaaminayay ka adkaada weyn laakiin aayad quraan ayaa waxay leedahay idaa jaa ajaluhum laa yasqiruna saacata walaa yastaqdimuuna anigu waxaa ii daran haddaad tiraahdo maxamed farax eedida cabdiqaydi dilay iyo inay adeerkii ku dhifto xabad iyo xabad baa ku dhacday marka ay tiraahdo anigu waa farxaya waxaan sanixi lahaa haddaa ay dhihi lahayd jalaal eedida si siyaad bara mashquul ku dhexdhigta asoo qaxootiyo carray oo xabad ka carray haddaad dhihi lahayd cabdullaahi yuusuf oo xabad ka carray oo xamarawiye ka eryadeen oo Itoobiyaankiis dabada looga dhaca oo watay iyo gumaysiga u keensaday ayaa asoo qaxootiyo jaraynaya oo da'daasa dal shisheeyo la Yaman ku dhintay asoo qaxootiya sariirtiisa korkeeda meedkiisa laga helay haddaa ay dhihi lahayd waa nixi lahaa haddaa say tiri jalaal maxamed farax eedida xabad baa ku dhacday oo caawa adoo daarada afkaada ka soo baxday oo tiri isagoo dagaalamayo dhintay aad iyo aad baa u faraxsana maxaa yeelay innaga waxaa nagala helaa taariikhda ragga iyagoo soo jeedo ay xabadda ku dhacdo laakiin anaga ragga qaxootiga noqda ee marka horena kibir qooqa iyo likaacada iyo kaligitirnimada iyo damaca waalan aan looga taaghayn markii xabadda ay bilaabataan dhabarka jeediye dhabar weynta ah nagalama helo kuba intay cabsadaan meengeliyo u dhinto dala shisheeye ayagoo qaxootiya oo hodada matalayana nagalama helo marka waxaa weeye waxaan ku faraxsanahay arrintaas ciidida ka hashay waxaan kala hadlay haddaad garasho leedahay waxaan kala hadlay wax ku saabsan taariikhdaasi oo ah war aniga ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay Soomaaliya waa noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya waa noqday waxaan rabaa inay ii sheegto adigu maxaad noqotay adigu caasimadda aad leedahay haddaad nin Soomaaliya tahay oo saameyn ku leh bulshadan ii sheeg ma Muqdisho aad leedahay ma Hargeysa aad leedahay ma Burca aad leedahay ma Jamhuuriyadda Djibouti baad leedahay meesha aad adigu saameyn ku leedahay ii sheeg tusaale kale ku soo qaadaya markaynu ka hadlayna hawiye waxaa soo hadal qaada dhaqaale war adigu ma isgaarsiinta Golis baa leedahay ma Telesom baa leedahay ma Hormuud baa leedahay bangiyada ma Salaama bangi baa leedahay ma Dahabshiil baa leedahay ma Taj Express baa leedahay ganacsiga ugu weyn ee isgaarsiinta iyo bangiyada miyaad leedahay haddaba caasimadaysan walaalkayo haddaad hel magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan qof oo daarada aad ii sheegi karin ya haddaad isgaarsiinta qaranka iyo bangiyada aad lahayn ya haddaad caasimadda koowaad itii 23 lahayn ya haddaadan dawladaha xorta ah ee Soomaaliyeed sida Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya aad midna lahayn hoggaan mataqaana aad ku baxay waxa aniga aad caawintay ila soo fariistay ilmo kasto wax xisho darro weey hadhowna waa og hadda markaan kula galo waxay dhihi doonaan nimanka ma jartay daahir wuxuu la doodayay nin warsingiliyaho saynta nooga yaala waxaasay meelaha u sheekay doonaan laakiin kaba saareyso nin abqariyaha tahay nin aftahanaha tahay nin ka soo jeedo gobol laga dagaalama tahay waayo 2 daqiiqo dhiman marka waxaan ka rabaa inaad soo adkayso war aniga Cabdullaahi Ciise Maxamuud baan kugu hadlayaa xorriyadii baan keenay waxaad ii sheegtaa nin daaroodo xorriyada keenay inuu gumayso u shaqeeyo mooyee waxaad ii sheegtaa nin tegey oo inta ilbaxnimadiisa ay geysay qaramada midoobay ka hor qudbeeyay ee riskiga intaa la eg dalka gumaysto ku jiro u bareeray waxaad ii sheegtaa sababta ay ku dhacayso in markii laga soo xornimada la soo qaatay ra'iisul wasaarihii dawladda daaqiliga laga dhigo Cabdullaahi Ciise Maxamuud caasimadda ee Muqdisho ahaato adigu xageed joogtay aaway caasimadaadii aaway maxaad xilku u qaban weyse maxaa haddana keenay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya historyga inuu hawiye noqday iga jawaab su'aalaha su'aadda ugu sii celinaya caasimadda daarad leeyihiin 1 milyan ku nool qof 4 milyan haysta aniga caasimad ah ay ku nool yihiin hay caasimad 3 caasimado dalka leeyahay ee lahaan jiray hadda ma ahe Burco iyo Hargeysa iyo Muqdisho tee daarad leeyahay iga soo jawaab waxay joogtaa ya daarad uma tilay qaramada marka la tagay ee la soo qaaday gobonimada Soomaaliya yaa ku jooga adiga hebel baa ii jooga shacabka ku dhageystaanay hadda waxaad ka jawaabi karin markaasi ma wada murmi karaan weligeed ma wada daaqi jirin dayre iyo cawle ya dawacaduna loo ogdishay dawac wareegtaa la yiri ka soo jawaab daayir waa noo dhammaaday daayir 5 daqiiqo qaaday kulley balanta waxay ahayd 10 in lagu kala baxo iyo 5 laakiin shiinow dhowr su'aal ayuu daayir ku weydiiyey taa ay dhalinaysa in 5 daqiiqo oo extra ah ku darno wareegiinii afaraadna markaan qiimeynay weli waxaa hogaaminaya shiine oo markii afaraad 320 wata
laakiin wareegan ugu dambeeya qofkii natiijo bata dhanka kooniska ayaa natiijada ugu dambaysa helay laakiin doodda hal saac ay soconaysay heshiiska soo waayo heshiiska doodda hal saac ay soconaysa ma dhowa okay shiina qabsa marka may balantu waxay ahayd 10 iyo 5 marka hore waxaan ku heshiinay adaan fahmin marka hore waxaan ku fahanay 10 aan ku furaynaa kadibna waxay ku socon doontaa doodda 5 iyo 5 oo hal saac taasay ahayd balanta adaan fahmin oo markii hore waxay ahayd 10 iyo 5 wareegii koob waa dhamaaday okay daahir horta wuxuu yidhi su-aasha uu weydiiyey markaa uga jawaabo muqdisho 4 milyan baa ku nool daahir oo 4 Soomaali weeye inaad taa ka tagto ma habboona raxaweyn inta ka joogta iyo inta hawiye ka joogta waxa laga yaabaa inay isla eg yihiin afkana waxa ka maqlaayay dhowr jeer adoo leh caasimad weeye caasimad macnaheedu inaa fahantaa muhiim ah waa meel Soomaali ka dhaxaysa weeye daarood inta ka joogta maanta adigana kuma tirsana anna iima tirsana hawiye inta ka joogta adigana kuma tirsana anna iima tirsana marka caasimad Soomaaliyeed weeye Soomaali oo dhan baa joogta safaarada jooga ajnabi baa jooga hargeysa sidaas la mid caasimada Somaliland weeye Somaliland siba isu xijinaysaa laakiin waxaan ku sheegayaa Somaliland anigu majority baan ka ahay Somaliland ninkii xornimadeeda keenay baan ahay waxa nin baa ka hadlaysay Cabdullaahi Ciise waa nin Soomaaliyeed buu ahaa Ingiriiska cid baa tiriya u adeegtay markaa leedahay oo la shaqeynaysa gumeysti Cabdullaahi Ciise dowladda Soomaaliyeed oo xor uma shaqeynayeen Talyaani u shaqeynayay waa inaad taa fahantaa muhiima daakhiliyada lagu sheegaya waa gumeysti waa administrative hoose oo Talyaaniga hoostiga ahaa haddii cid la shaqeynaysa markii isaga la shaqeynayay 13 nin oo SYL sagaal ka mid ah daarood baa ahaayeen maskaxda ku dhalatayna Cismaan Keenadiid baa Keenadiid waa garanaysaa hore ugu socon meeno waa ninka garanaysi ninka ku rafatay oo Jaale Maxamed Siyaad Barre Jaale Maxamed Siyaad Barre inuu ku dhintay Nigeria waa ognahay sidoo u dhintay inuu macaan lahaa waa ognahay meelo ku dhintayna aad u garan maysid hana ku dambaabin nin wadanka xoog ku qabsaday buu ahaa xoogii baana looga saaray waa caadi weligeeda ka dhacdaa عيديد باكوسون قلت حبض باكو دعدي حبض باكو دعدي حبض ما يسوي إثيوبيا للدرية مسوي مريكان للدرية كو دعدي كم دعين سوي إسبارة تاجن وعثمان عتاء سيستان حبض ساسي كو دعدي إسبارة وأنا أنا بحال كيسافي عن موقع إسبارة تاجنا إسبارة في الذي متجوجين يا كوسو هالجموع حرمة كو كان واتري ورسيد كواهيو عم تقول هذا الشيء تأركاي سيد كما شيء كان سيد محمد عبد الله حسن نكى تريا إنجليزكو مركو كدقي مركو وحكة الأوعي وكدقي ديار داوي وأفريقيا تاريخ صار وقلي وأي سيدكو عبد الله عيسو حكم داخلي وتريان مش غيني أنت على سؤال سيد محمد عبد الله حسن بقولتوا هذا إنجليزكو حكم بردي مركو كوفي كدلي ورسيدو سيدا بقرة العرب وضك عن كوكب تهايسو oo aala daaroodiya sida aala sacuudaan sacuudiga ugu sameeyay oo reer aala nahyaan aan imaaraadka ugu sameeyay aala daaroodiya ah uu sameeyo kirb weey Soomaali waa sinaanaysa maalintii haduu yeeli lahaa dhamanka iga dhulka lahayd sida carabku isu salaamto ama halka oo kale iga salaami lahayd ya wadankan sidaa baa ku saari lahaa laakiin Soomaali inay wax tahay oo mid tahay baa anoo ku qaracsanahay Somaliland baa isku dhadajinaysaa Somaliland hawiyo xagee ka tigaa marra waxa ku hadlaysaa marna waxa ku hadlaysaa marna ir Soomaali iyo aadaysa hadba cid kala sheeganaysa raxweyn taariikhda ma sheegto isaaq taariikhda ma sheegto anu tan daarada iga badan ma soo koobi karo daarad hadda waa canaanaya sababtoo taariikhdii maxaa waa kala ilowday dama xafidi karo waa buwaag waa wixii iskuulka lagu dhigay jiray weey anu ma xafidi karo wax badan weey taariikhdana waa leedahay adaa ila leh ina ku faanto weey sayidka marka biljamka joogto dad kala hadlaysid waa ina u sheegto tira badni hadii laga hadlo waxa sheegaysay dahabshiil baa jira kana jira dahabshiil isaaq weey waa in allo xisiyay hebel kala jira yaa leedahay tiri walasjee baan leeyahay SJ ila maalintii lacagka la furay intee milyan oo dollar bay diday dahabshiil ma diri karaa golista xawaaladaha sheegaysa ma diri karaa ma diri karaa adeeg ku siinaysi hawiyo dhanbe soo quudisay annaga ma siinaysaa ina mahad celisay daadan bisadahayn iyadaan leeyahay SJ baan leeyahay dahabshiil waxa ku soo diray waa kaas
jimcaha asiga ku soo diro miyuu kula joogaa waa maya ma bixin karaa intaa ma bixin karaa bixin karto ma bixin karo ya ma bixin karo waa ina maaragtay saa ogaatid weeye waxa leedahay kanaan leeyahay abahay baa guri laha anaa dameer la dhaanta maamaayeen weeye war farmaajo waayo xagee ka talin jirta muqdisho sheegayso nin ku doobinaya maanta waayo farmaajo waayo ma sheeganaysaa hadaa sheeganayso de Soomaali wax ka oranaysa farmaajo waayo aniga ra'iisul wasaarayaashii inta oo ra'iisul wasaaraha leeyahay Umar Cabdirashiid shalay markuu ra'iisul wasaaraha ahaa oo Xasan Sheekh madaxweyne ahaa waa la tartamay ku qabsanay Cabdiwali Gaas Sheekh Shariif waa la tartamay ku qabsanay rag hal nabi ahaayeen probleme 8 milyan buu ku soo ururay markuu hadlay aanu tartami maayo buu la soo istaagaa anigu tartami maayo walaalayaal soo dhawaad aanu tartami maayo لكن ما بقى عندي سلسلة كأنه جيو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو كوكو دعي شنتهذه دقيقة نوار أمي ستي دايرنا وكم مغلا أنا حقوق وحنقول لنا إن قف والبو الصوماليات أما قف والبو الدارود يهوي ومثلاي إن أنسق روح بدن أصول دوينو شينو سق روح بدن أو هذا الشيء دايرنا ميجا وقفسنا لكن وحن جعلها mar walbana inay natiijada iyo aftahanimada isla socoto sidoo daahir u hadlayo quruxda badneed iyo sidoo koonis u helay iyo sidoo shiina u hadlaya asagana koonis u helay inta baan sheegaynaa anagoo cidna u eexanaynin daahir waa saaxiibkeyga shiinana waa saaxiibkeyga marka intaanan daahir meega uusan qabsanin aanan ku soo dhaweynin natiijada markii shanaad waxaa hoggaanka wada shiina oo wata 492 coins iyo daayir oo aanan wax saa ka fogeyn asagana haysta 106 coins daayir meega ku soo dhawow 5 daqiiqo waayay shiina waxaad u malaysaa inuu hadba madaxa geedaha uma taqaana la gelayo shiina waxaad u malaysaa inuusan lahayn legacy oo iga sheekeeyo oo taariikh gobonimo doon ah shiina wuxuu yiri maxamed siyaad barre ma ogidaha ku dambaabin laakiin wuxuu leeyahay jaana ciidid baa isbaara soo taagan ku dhintay sidoo asaga joogay oo kale horta ciidid baa isbaara soo taagan xabad ku dhacdo waxay la mid tahay wixii ay lihi jireen tolkaaga ciidid baa laftiisana soo kufsaday oo isku dhiibi jireen qaxootiyada ay la mid tahay shiina haddaad doo taqaano magaalo Soomaaliyeed way tahay Muqdisho laakiin waa magaalo hawiye su'aalaha aan ku weydiiyay hal xabba igama jawaabin oo ahayd war may leeyihiin daarood baan ku weydiiyay magaalo ay ku nool yihiin hawiyaha joogo marxaweyn ha joogto daarood may leeyihiin magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan qof oo ku taala dhulka xorta ah Soomaaliyeed waa ka jawaab weyse waxaan ku weydiiyay su'aalo badan oo ah daaroodku may leeyihiin bangiyo iyo isgaarsiin daaroodku may leeyihiin caasimadii hore ee dalka iyo caasimadaha maanta hal magaalo ah jawaab bay u baanta waxa kale oo ku weydiinayaa noloshantii dalka ka faa'iidsanayo maxaa daaroodku qasbaya taariikhdooda inuu noqdo kursigan ku dhagay kama degayo halka maray qabtaan masi ii diidantaa libinta ku saabsan Cabdullaahi Ciise inuu xorriyad kursi uga degay aada caddi inuu xorriyad kursi uga degay Cabdiqaasim kursiga inuu xorriyad uga degay Shariif Sheekh Axmed kursiga inuu xorriyad uga degay ilaahay kuma soo diiday Xasan Sheekh kursiga xorriyad uga degay laakiin aad ku disheen Cabdishii Cali Sharmaarka kursiga aad ku disheen Maxamed Siyaad Barre laga fuji waayay qaxooti ku dhintay xoog looga saaray Cabdullaahi Yuusuf Itoobiya gumay soo watay xoog looga saaray qaxooti ku dhintay farmaajana maanta laga fuji laaya waxaas walaalow miyada ceeb u aqoon waad iga soo jawaabi doontaa maxay kuba hawiye markaas kursiga uga degaan oo gobonnimo iyo dimuqraadiyad ay u raacaan kuwa daaroodna maxay isugu dhajiyaan oo kursiga looga dejilaya waa su'aal inaad iga soo jawaabto oo shacabka qanacsan doonaya geedaha madaxa ku qaraacin intaasoo su'aalood ayaa hor yaalla ragga ugu caansan Soomaaliya ragga gobonnimo doonka ah ragga dimuqraadiyadda u shaqeeya caasimadaha dalka waxoo dhanba maxay hawiye u leeyihiin Ethiopian bay la dagaaleen Maraykan bay la dagaaleen huwantiisii ya way defeat gareeyeen ma ii sheegi kartaa gobonnimada oo u dagaalama nin daarooda ma ii sheegi kartaa sababta ragga daaroodka madaxweynayaasha Soomaaliya
ay kursiga ugu dhegan yihiin oo keligitirsu yihiin oo loogu dilo ama qaxooti looga dhigo ya ma ii sheegi kartaa ma ii sheegi kartaa hawiyaha kursiga inta ku dhegay lagula dagaalay ee xabad looga dejiyey hadalkaba anoo 5 daqiiqo gaarin ayaan kuu soo koobayaahe bal intaad analyze garayso ya su'aalahayga si dhaba u diris aniga kuma dhihin raxweyn baa degan caasimadda iyo daarood baa degan lamaha waxaan ka hadlayaa magaalo daarood leeyahay oo ay 1 milyan oo qof ku nooshahay shiina ma jirtaa waxaa weeye su'aashaadu haa waa magaalo hebel maya ma jirto haddaysan jirin haddaba 4 milyan magaalo ay ku nooshaha dad Soomaaliyeed ay hawiye leeyihiin waana Muqdisho taas waxay ku muujinaysaa inaan ahay ninka adiga markasta kaaga horeeya Soomaalinimada ninka ugu timid Soomaali sida aad sheegtana hadalkaaga ku jirta inaad jabarti tahay oo Carab tahay oo Soomaali ahay adiga afkaaga nooga sheegay marka aad nin qaxooti yahay mid ku saabsan duubira direed ayaa dhashay daarood anigu fikirkaas ma qabo taariikhna kuma hayo waxaan qabaa daaroodkaani in gabar shaqaalaha oo meesha si ku guursadeen qolada ahaydna aan la ogeyn inay sidaasna ay mataqaanaa hadda iska sheegtaa duubira direed naag la yiraahdo taariikhda kuma hayo su'aalaha iga jawaab muxuu dadka madaxda ah ay kursi ugu dhigaan maxay kuwa hawiyaha dimuqraadi u yihiin caasimad ma leedahay magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan daarood ma leeyahay bangi iyo isgaarsiin ma leedahay waxa soo dhacdo iska indhatirin adoo ismaqiiqid adoo SJNina wuxuu yamaaqan ku mashquulin anu nina wuxuu yamaaqan akoonkan waxa la igu sheegay akoon ay daarood dhalac ku aruursadaan oo la yiri hawiyaha nogala celiyo sababtoo ah inta arkay anigu waa arkaysi inta qof hawiye ah ee caawk ii soo diraya giftiga ya oo akoonadooda iga soo diray laakiin waxa arkaa adigu hal qof ama nina wuxuu ahaada ma ogi SJ la yiraahdo oo wax ku soo diray oo la soo ballamay oo lacag lagu soo shubay laakiin anigu waxa arkaysaa anoo cidna balansan dadka siday wax igu soo dirayaan ayaad u jeedaa dooda horogal waa ka bax daayrishiin waxaa idinka codsan lahaa taariikhdiina out of topic ha noqoto yani dadka meeshan ka maqan taariikhdiina ha ku koobnaato daayir waa mahadsan tahay si qurux badana u hadashay si sharaf leh intaanan meega u dhiibin shiine waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarta sharaftay qolkan oo giftiyada ii soo dirtay sharaf iyo karaama idin leeyahay taa markaan ka gudbo daayarow si qurux badana u hadashay si sharaf leh u hadashay waxaan jeclaan lahaa markaana shiina inaan u dhiibo maadaama daayar uu waqtigiisii ku dhammaystay su'aaluhu qabay iyo doodiisa wareegeeni 6aad waxaa aad baa laiskugu dhow yahay koonis aan weli waxaa badan shiina oo haysta 529 iyo daahir oo in yar u jira asagana haysta 423 daahir aad u mahadsan tahay shiine waxaa noo bilowday 10 daqiiqo halkii saacaan soo gabagabaynaynaa shiino waxaad haystaa 10 daqiiqo waa markii shashada daqiiqaan ku wadaynaa maadaama ay daahir shiina intaba iga codsadeen ay isku raaceen shiinow daahir su'aalo badan uu ku weydiiyey waxaan jeclaan lahaa 5 daqiiqa 3 daqiiqa ugu horeysa inaad su'aalihiisa ugu jawaabtid wixii markaa fikri aa qabtidna aad sii wadid ku socda shiin waayahay horta daahir kursi la isku dhajiyo buu aad uga hadlay horta daahirow kursiga horta asalkiisa wala isma amahayo waa inaad taa ogaadid kursigu tartan hawluu ku xiran yahay markaan ka hadalno dowladnimada iyo cid kursi isku laysa iyo waxa aan ka hadalno dowlad Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre Muqdisho waa ka tagay USC buu uga tagay dalka iyaga qabsaday jaartarka midowga Afrika wuxuu dhigayaa ciddii caasimadda markaa jabhadda haysata inay iyadu dowladdu soo dhisto oo adduunyadu soo aqoonsato dowlad inaad soo dhistaan baa idinka sugayay عايديد قرله على قرله بكسو قبقبيسين إذن التاريخ حما هالكا إذن كرعدي سومالينا دباتدا إلى إيمانتا أي كبان على هاي باقاسيسين هذا مالنت الدولة دسي لهاي أو كوهشين لهاي أو علي إيو نيكال اللي هلبدي المعاديرتها أو إسليني الله أنحرست الله محموية ميد أوران لهاي فريسو ميدو أدنا مدحوين النقو وردالكو سيدا أو مانتي هاي ما أهالين أدنا قحوتي ما أهاتين أدنا قحوتي ما أهالين رواندو كالين أهالين
laakiin caqligaa ku siin waayey waa inaad taa ogaatid caydiid garle cali garle ha ilaawi daarood meel isku haysta arki maysid waxaa arkaya hadaaye adoo le daarood ma mateli kartid daarood kala gurin anu daaroodnima ku kula ciyaaray baa meesha ku joogaa daarood baan hay daaroodna suudaankiisaan hay dadka inaad kala barato baa aad u fiican farmaajo doorashadii buu qaban waayey baa tiri horta xasan sheekh maxamuud iyo waxa ka horreeyey sheekh shariif labadaba muddadu waa ku dheeraato waddanku waa waddankaa iska burbursan doorashadu waa dheeraataa ra-iisul wasaaraha doorashada qabta farmaajo doorashadii wuxuu ku wareejiyey adeerkaa rooble ku wareejiyey rooble halkii sanaadiiqda waddanka inuu dhigo oo doorashada qabto ay ahayd maalinna waa kaa usii ordaya uhuru kenyatta mucuusta u xiraya maalinna waa kaas imaaraadka u ordaya oo yaa loo xisiye leh oo 8 milyan 9 milyan ka lusha xasan sheekh doorasho ma qabanay ra-iisul wasaarihiisi cumar cabdirashiid baa qabtay hadda firin ra-iisul wasaare xukuumad baa wax qabataa waa inaad taa ogaatid sheekh shariifna ma qaban ra-iisul wasaarihiisi cabdiweli gaas baa qabanayay oo road mapkii jeexay oo waddanka ka saaray muddadii ku meel gaarka ahayd haddii cidi doorasho la kuftoo qaban weyda adeerkaa baa la kufay waa inaad taa inaad isaga ku canaanato weye farmaajo inaad ku canaanato maaha ummadda oo dhan oo hortaagan buu farmaajo mas-uuliyadda doorashada wareejiyey ra-iisul wasaarahana shaqooyinkaa laga rabaa maaragtay inuu qabto hanti baa ka hadlaysaa war meel fog ku aadi maayo war dhafoor buu ku yaalaa mar walba halka anaa kaaga adkaanaya 450 kunaa maraysaa 600 kunaa sii soconnaa bankiyada waxa kana sheegayso haddaan halkaa lagugu soo diri karaynin war ma aakhire boos jannada kaaga gadayaan haddaa qalbi dhagax baa xustay oo waxa tiri ogaadeen baa la dhiibay adoo raba inaad daarood isku dirto qalbi dhagax garow lagama soo qaban kismaayo lagama soo qaban qalbi dhagax gaalkacaya laga qabtay gabar habar gidira oo xaaskiisa oo meeshii degan buu guriga u jiifay galmudug baa qabatay farmaajo ciidan uguma dirin awooddaana ma hayn gaalkacayo idinkaa soo qabtay oo baydhabo geeyo xabashidii halkaa joogtay u geeyey farmaajo waa kula gargalateen macaabud waaq baa laga soo qabtay ma farmaajo ciidan usoo diray waa maya waa inaad taa ogaatid magaalo milyan ku nool yahay aad tiri war waxaan ku iri tira maba ku wada hadli karaba soomaali galbeed waa 14 milyan 12 baa ogaadeena 2 milyan oo soo hartay milyan waa daarood milyan kale tan waa soomaalida kale boosaaso milyan baa ku nool puntland taa arkayso 4 milyan iyo 500 kun baa ku nool daarood oo dhan ma wada deganaan jubbaland intaa in la eg baa ku nool galmudug intee ku nool هيجد على أوي وأنا تأويت وي ما هنا ما مقولة ذا لا بد ما مقولة بقى هذا هذا إذا علاك قيل يعني أركع أوله مقدش عدد كي نجود عادي لكن كوكن وعمرين سؤال أيوة ودي سمج على إنا سؤال كويدي سؤال يرى كويديني هذا ما نقول بقى فيديو دوبية أضو دارو هذا كعاي أكو أركع أوله مركي أركتو قف خنيسة قبل كوكو صناعية أدو دارو ولا جيرا داهرو خنيس سومالي مركا مقاشو أورتا فين العلم حلال بامسو حاران شيك يستحم باو ذا خنيس إنا أفك كسو قادنو ومالو بكسو قادابا لا يقول حبديه لكن هدا كسو قاد سؤاشا كويديني يا خنيسة دي لما قلو أيكون قفك سومالي فؤاد بلو مايك اب سمسم إن أديركا بسو حسوسانيا aniga ala ibaray Soomaali aanu dhinacan u qaado la ala ibaray oo yiri gudoomiyihii habar gidirtu dooratay baa adeer u ah isagoo kaaga cabanay oo waa ifadaxay baan maqlay waa icon waa ka xunay wiil Soomaaliyeed in ka wada halaabay weeye haweena dabada dhiibo ma oran laakiin hadee waa ayaan dara dhacday weeye oo idin kala murugaysanay waa ayo ninkaasi war ma daaro ba misoo ay adeerka su'aashaas waa ku weydiinaya هل جنبك كهل سهبل هبل بهالجبي سيد كوانا دافيسا سيدك أما غير أما وحو أهاد هويو أهاد أو سيدي عم تقول أو شيء تشاغو وكا أمسي يعني وهذه قد دافي مكستاي دارو ذاك الجوري سيد تشوتش أنا هويو كوكا الجوري مايو هويو أنتو سوق السنة دارو سوما جستو وإسوقوليه اسمو ليه كلا دحقلا أنت أو بغربان كوسو ترينيا وقاس maxaa ku yiraahdaa Suudaan garaad oo halka marka fadhiga looga wada kacayo oo aan hadal ka daba oran dad dhaqan kale oo ku dhisan baan laakiin aad ma haystid hogaanka dhaqanka oo ku kala celin kara ma haystid adiga waa ayaan darada keentay ina maartay halka isku baabiisaan aydid ba Mareykan la diray
maraykanka godobtaa oo haysanaa dad masaakiin oo yaacayo xabad nagaga furay yaa waa world power waaye super power waaye beenta ha isku qanin 18 askari meesha kaga dhintay 7 kun oo qof ayna ka dhimatay ka badan waa ka baxay waayo qorxulida wad sheekada oo dhamaystay waxa dhamaatay shiinow si qurux badan oo hadashay fi karaamo markaana waxaan u gudbayaa walaalkayga daayar asagana sidoo kale aan sharaf u ahay doodana si fiican ay u socotaa kolley waxa waaye aftahannimo iyo ruux walba xigma ay u dhibay waa horkeenay kana waa markhaatiyo dhaga wax maqla iyo indha wax arkay intiin daayar kuu gudbaa intaanan ku bin